بسم الله qodobkan saacad wuxuu ka hadlayaa put first thing first inaan nolosheeda u kala hormariyo sida ay u kala muhiimsan tahay arrimaha nololeedan leeyahay inaan u kala hormariyo maxay sida ay u kala muhiimsan tahay markii aan soo xadiday hadafka nololeedan lahaa sidoo kalena aan noqday qof proactive positive ficil sameynaya aan noqday sidoo kalena xadiday hadafkii nololeedan lahaa xadiday maxaa laga doonayaa hadafka nololeedan leeyahay markaan xadido intaan sameeyo noloshu ma aha mid si sahlan igu fududaynaysa inta badan hadafkayga inaan gaaro waxaa jiri doona caqabado waxaa jiri doona waxyaabo badan kaa hor istaagi karo hadafkaaga nololeed inaad gaarto kaa hor istaagi karo haddaba waxaa lagaa doonaya sida u kala muhiimsiina hadaafta nololeed inaad u kormariso qof walba wuxuu leeyahay hadaaf tiro badan buu leeyahay laakiin hadaaftaas tirada badan way adagtaa qofku inuu wada gaaro haddaba maxaa xala kan ugu muhiimsan ugu saamaynta badan samay noloshaada saamayn bay yeelanaysaa intaa waqti ku bixin lahayd ahdaaf yaryar oo wax micno ah aan soo kordhin noloshaada soo kordhin ku bixin lahayd haddaba waxaan u baahan inaynu fahanno wax loo yaqaano priority matrixkan waxaa weeye sida nolosheedna u kala horumarin ama sida u kala muhiimsan lahayd inaynu fahanno qaanadan koowaad waxaa loo yaqaanaa waa muhiim waana degdeg qaanadan waxaynu gelinaynaa wax allaala wixii muhiim noloshan u ah misana degdeg ayaynu gelinaynaa maxaa ka mid a qabashada shaqooyinka waajibka ka mid a oo shaqa ayaa qabanaysa ama shaqa ayaa ku taala shaqooyinka waajibka ku saaran inaad qabato oo meelaad ka shaqaynaysa shaqooyinkaagii waxyaabay lagu yimid inaad qabato qaanadan bay soo gelaysaa waana muhiim waana degdeg qaanada waxaa kaloo soo gelaya xalinta dhibaatooyinka degdega ah waxyaabo badan waxaa jiri kara kusoo wajihi karaa aadan ku talagelin laakiin degdeg kugu soo wajihi kara muhiimna ah iyagana qaanadan baynu gelinaynaa qaanada labaad maxaa loo yaqaanaa waa wixii muhiim ah laakiin degdeg ahayn waxaynu geli doonaa wax walba muhiim noloshan u ah wax walba noloshan wax badan ka bedeli doona laakiin hadda si degdeg aan u haysan baynu geli doonaa waxaa ka mid a barashada xirfad cusub oo kale xirfad cusub oo biirinaysa aqoontaada xirfadaada shaqo biirinaysa taasoo kuu saamaxaysa in mustaqbalka dhow inaan ka dalacdo marxaladda joogto marxalad kale adigu kuu saamaxaysa ayaynu gelinaynaa waxaa kaloo ka mid a aqrin bug muhiima noloshan sida buugan aad aqrinaysaan oo kale aad baan ugu hambalyanaya sidoo kale maadaama noloshiina aad doonaysa in wax badan ka bedeshaan oo qaanadan ayaad dhisaysaan bay micnaheedu noqonaysaa sidoo kale qorshaynta mustaqbalka inaan planning ku sameeyo my future ama mustaqbalka inaan qorsheeyo muhiim bay waxay u tahay nolosheeda laakiin markaan degdeg umayaan qorsheeyo haddaba qaanadaa waxaynu gelinaynaa maxay waa alaala wixii muhiima aan degdeg ahayn baynu qorshaynaynaa qorshaha xaggaa baynu gelinaynaa sidoo kale qaanadaa saddexaad waxaa loo yaqaanaa muhiim aanan ahayn laakiin degdega waxaa muhiim maaha laakiin waa degdeg maxaa ka mid a la socoshada akhbaaraadku kale iyo ciyaara iyo musalsalaadka waxyaabaa lamidka inaan la socdo muhiim ma aha laakiin degdeg weyn sidoo kale waxaa kaloo ka mid a qaanada afraad ugu dambaysa waxaana muhiimna ahayn degdegna ahayn maxaa ka mid a inaan iska daawado social mediaha anigu hadaf gaara aan ka lahayn hadaf waxbarasho hadaf xiriir qof oo ehelka asxaabta wax la mid a hadaf anigoo aan ka lahayn gaara oo waqti lumis keliya aan mudaawanayo inaan sameeyo waxaa weeye ayaa loo yaqaanaa waxaana muhiimna ahayn degdegna kugu ahayn haddaba bini aadamka wuxuu u janjeeraa inta badan inuu sameeyo wax allaala wixii degdega muhiim baysan noqon haddii ay doonaane waxaa laga yaabaa qof inuu u degdego ciyaar bilaabanaysa inuu u degdego bilowga inuu kala qabsado isku dayo iyadoo inuu bilowga kala qabsado iyo inuu daawadaba muhiim saas aysan ahaynba halka uusan waqti uusan ku bixinin noloshiisa mithaalal kale inuu koorso barto inuu english koorso wax la mid a ama inuu jimicsi sameeyo jim aad wax la mid a inuu waqti uusan ku bixin haddaba biniaadam haddeenunaan waxaynu u janjeernaa maxay wax allaala wixii degdega muhiim bayuusan noqon haddii uu doonay waxaana inta badan ka caajisnaa wax allaala wixii degdeg aan ahayn muhiim baa noqda haddii uu doonay haddaba kala doorashada qaanadaha kan ayay nolosha qof walba qaabeynaya haddii ay tahay qaanadatan mid noloshaada u badan oo wax allaala wixii muhiim aanan ahayn laakiin degdegna ahayn mid ku bixiyo noloshiisa haddii aad tahay waxay noqonaysaa noloshaada mid inta badan malayacni ku dhamaatay bay noqonaysaa maxaa muhiima marka waxaa muhiima inaan nolosha inta badan ku bixino wax allaala wixii muhiima laakiin degdeg aan ahayn maxaa yeelay tan marubaa samayn lahayd muhiim ah degdega marubaa samayn lahayd oo shaqadii waa qaban lahayd xalinta dhibaatooyinkana waa qabaleed qasab ee ku weyd laakiin qof walbuu horumar maanta gaarin noloshu wuxuu waxa weeye qof ku bixiyey wax allaala
qaanadan buu waqti badan geliyay wuxuu waqti badan geliyay inuu xirfad ka siyaasado wuxuu waqti badan geliyay inuu akhrin buug iyo oo noloshiisa horumarinaya wuxuu waqti badan geliyay qorshaynta mustaqbalkiisa buu waqti badan geliyay haddaba waxaa laga doonayaa maxay in aan nolosheena inta badan aan ku bixino sida qaanadan labaad aan ku horumarnay inaan ku bixino mar walbo qaanadan labaad nolosheena aan ku bixinana waa mar walbo nolosheena horumar iyo dhanka wanaaga ama dhanka mustaqbal ifaya aan ku gaarinay bay noqonaysaa haddaba qodobkan saddexaad intuu noogu yahay qodobkan afraad aynu geli doonaa insha allahu tacaala